Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin waa idin salaamay meel walba dunida daafeed aad ka joogtiin. Waa walaashiina Maryan. Galab waana idin leeyahay. Marka waxaan idin soo gudbin rabaa maanta qasiyaar. Gabadhan waxay tiri waxaan ahaa gabar, waxaan guursaday reer. Kadib ninkii waan isfahmi weynay. Ninkii markaan isfahmi weynay reerkiisii way dulmin jireen. Habeenii maalin waxay tiri oohin ayaan ku jiri jiray. Kadib waxaan bartay salig nabi iyo istighfaarta ilaa xawla walaa quwwata illaa billah ayaan dadka maqlay tiri. Markaan inta aan ka seexanayo ilaa waaga iiga barin intaan ka hurdayo maalintii oo yeel akhrisan jiray salig nabiga iyo istighfaarta iyo laa xawla walaa quwwata maalin iyo haween intaan soo jeedo intaan hurdayo maahane. Kadib gabadhii waxay tiri waxaan noqday qof firfircooni leh oo hintii badaneed oo iga joogsatay. Waxay tiri ninkaygii waa isfahanay, reerkii way ii fiicnaadeen. Horaan reerkii aan ka dhashtay hata ismaan fahmaynin oo naxariis iima lahayn ay tiri. Kadib markii dambe way ii fiicnaadeen. Hata waxay tiri maalan yeeshtay alxamdulillah nolol qurux badan oo ku noolaaday. Marka gabadhaas waxay leedahay salig nabi yaa la moogaanin istighfaarta. Qof walbo culays haysto horta Ilaahay culayska ka dulqaado. Qof walbo hami leen hami oo khayr qab Ilaahay ha siiyo. Qof walbo caruur doonaan Ilaahay caruur khayr qabta ha siiyo. Gabar walbo oo guur doonaan guur ay ku degto ay ku nagaado izowj wanaagsan Ilaahay ha ku deeqo. Marka waxay tiri gabadhaasayta way iga maqnaayeen ay tiri horaan ciil iyo oohinaan la seexan jiray. Markii dambe alxamdulillah nimco waatana arzaaqo baraka leh waatana lacag waatana hanti waatana awlaad waatana. Marka waxay tiri gabadhaasayta yaan la moogaanin. Marka asxaabi ahbaabi aan ku dadaalno midaasayda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.